waxaynu isugu nimi maanta inaynu ka wada hadallo qaramaynta manhajka xisaabaadka khaasatan qaybta cashuuraha. ujeeddaduna waxa weeye inaynu u diyaarinno ardayga markuu ka soo baxo jaamacadda inuu isla markiiba gudan karo howlihiisa la xidhiidha xisaabaadka iyo cashuuraadka. ardaygu markuu ka soo baxo jaamacadda 4 meelood buu shaqo tegayaa, amba dowlad buu shaqaynayaa, amba private sector buu shaqaynayaa, amba hay'ad buu shaqaynayaa, amba isagaa shaqaysanaya, iskii uu shaqaysanaya. afartaba arrinka cashuurtu way ka hor imanaysaa. waxaa loo baahan ardaygu inuu ka jawaabi karo su'aalaha uu kala kulmi doono 4 meeloodba, amba ha ahaato marka interviewga laga qaadayo, amba ha ahaato marka la qoree la siiyo kursi iyo miis. su'aalaha inuu doono ardaygu inuu ka jawaabo waxaa ka mid ah goorma ayuu bilaabmaa xilli sanadeedka maaliyaddu. financial yearku waa goormuu bilaabmaa, halkuu ka bilaabmaa, halkuu dhammaadaa. waxaa kaloo ka mid ah cashuuraha waajibay ee laga qaado amba ay tahay in ay bixiyaan ganacsatada iyo hay-adaha iyo kuwa dowladduba maxay tahay. ka soo qaadba ardaygii interview baabuu u galay shaqo ka soo baxday dahabshiil amba ganacsade kaleba, kursigii buu soo fadhiistay. waxyaabaha la weydiinayo amba ka hor imanaya waxaa ka mid a labadaas su'aaloodaan intaan idin weydiiyey. waxaa kaloo ku xiga xitaa qofku hadduu sheego inta cashuurood ee ku waajibtay, ka soo qaad shirkaddii qoratay ee ganacsiga ratesku maxay yihiin. iminka waxaa jira ilaa 70 cashuurood iyo fii oo la yska qaado. marka mid walba waa inuu qofku yaqaano magaceeda iyo sharciyaddeeda iyo raydkeeda, saamigeeda. cashuurta macaashku waa imisa, cashuurta mushaharku waa imisa, cashuurta sales taxku waa imisa amba cashuurta iibka, cashuurta kiradu waa imisa, iyo cashuuraha kale faraha badan leh ee qofka dee ka soo horbaxa. waa inuu yaqaano dee waxay yihiin. ee Somaliland, kuwa Uganda maaha, kuwa Kenyana maaha. waxaa kaloo la weydiinayaa sida loo sameeyo cashuur celinta. xisaabi ahaan baa qofkii loo qoray, loo magacaabay. xilligii cashuurtaa la gaadhay waxaa la yidhi waxaynu u baahanay cashuur celin la sameeyo. halkuu ka bilaabaya waxaa la rabay xisaab celin laga sameeyo xisaabtii shirkadda, lana kalkuleed gareeyo, lana soo saaro cashuurtii ku waajibtay. halkuu kaga bilaabaya isticmaalo portal loogu talagalo isagoo iska jooga xafiiskiisa uu ku diyaarin karo xisaabtii cashuurtana ka celin karo. waa inuu yaqaano haddii xilliyada loogu talagalay cashuurta in la bixiyo. cashuur walba xilli baa loogu talagalay. cashuurta macaashka waa inaad maalintaa bixiso ka hor. haddaad bixin weydo ciqaab baa waajibaya. cashuurta payrollka amba mushaharka xilligaa waa inaad bixiso. haddaad bixin weydo ciqaab baa ayaa ka dambeynaysa. xilligu waa goorma, ciqaabtuse maxay tahay. qofku de waa inuu yaqaano. qofku waa inuu yaqaano sharciyadda ay ku wada fadhiyaan cashuuruhu. in la cashuuran sharci lahayn lama qaadee. cashuur waliba waxay leedahay reference, xeer bay leedahay. markaa qofku de waa inuu yaqaano. cashuuraha qaar baa la dhaafaa. ka soo qaad inankii amba inantii soo baratay xisaabaadka, hay-ad baaba qaadatay. hay-addii alaaba u timi, alaabta waa la cashuuraa. marka halkee buu qofka kaga bilaabaya? ma yaqaana alaabta loo ogolyahay cashuur dhaaf hay'adda inuu yimaadaan
ma yaqaano kuwa loo baahan inay cashuuraan siduu sharcigeenu u qeexayo haddiiba cashuurta lagugu soo dallacay aanad ku qanacsanayn oo aad dood ka qabto halkaad maraysa yaad u tegaysa yaad la hadlaysa adigu haddaad cashuurta diiddo lagugu soo qoray jidka lagu marinayo sharci muxuu noqonayaa ilaa wayna taqaaneen wixii markaad diiddo waxba ka tartiibmaya muxuu noqonayaa halkuu maraya ka soo qaad in adoo ganacsado u shaqeeya alaab berbere uga soo degtay waxaa la doonaya alaabta berbere in la soo cashuuro nidaam iyo habraac bay leedahay cashuurta customka ma garanaysa halkaad kaga bilaabaysa manifesta lagu dhiiba waxa lagu yidhi alaabtaasa berbere taale ka soo cashuur halkaad kaga bilaabaysa waa waxyaabaha practicalka ah ee qofka ka hor imanaya ee aynu doonayno dee inaynu baro u diyaarino haddaynu u diyaarino cashuurta laga bixiyo Kenya amba Uganda amba Canada amba Maraykan dee garan maayo su'aalaha kama jawaabi karo marka himiladeenu waxa weeye inaynu qaybta cashuuraadka ee accountancy-ga inaynu qaramayno oo ka dhigno mid la jaan qaado ku habboon wadcigeena inoo gaarka ah dabcan manhajka xisaabaadka mid baa qayb baa caama oo waddankaa doontaba joog ay tahay inaad taqaano waxyaabana waa gaar waxa caamka wax doonayno caam ahaanta u qaadano waxaynoo gaarkaana dee gaarkeena inu barno oo dhallinyaradeennu u barno in la dibadu wada shaqo tegi maayaan halkanay ka shaqaynayaan horta ujeeddadana ugu weyni taa weeye cidda looga martida yahay qaramayntu waxa weeye waa jaamicadaha marka waxaynu u baahannahay khaasatan departmentska la xidhiidha accountancy-ga in maanta halkan lagu gorfeeyo waxyaabaha loo baahan yahay ardayga in loo gudbiyo ee loo dhigo marka taa la isla qaato wixii lagu darayo waa lagu dari doonaa insha allahu in semesterka soo socda September bilaabmaya qaybta xisaabaadka qaybta cashuuraadka ay noqoto wixii halkan aan ku heshiino in ardayda loo dhigo loo gudbiyo